بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دمان ددوينها الصوماليات هل كان يسوي آدي بدو مهندسين وحوي ما أنت وما آد أكل يدا وقت كسا أكل له هذا واحد يسوكين كنا هل كآد سقوط مادين وحوي سيد آد أدرين إنسان إن دل كني هايو ونقطة دل نبض أو مقرن إنسان قف كست الصوماليات وكل هيجا كرو إسلام كان هجوم وناكسن سيد لوجو بسلها يا مقرن سالك يسوق مادين آد بدو ما سنتيهن أنا قد دوام وحن كيمي مقرن سادل كني هاي أيام كيمي أنتي أنا السوشيال الحين شكلنا مدحوين لماذا واحد يصير بالصوت دلكي هاي وأنا صوت تا مركا واحد صار كي تدوينه الصوماليات أيام صار كي هويين كأيام صار كي دمر كأيام صار كي أرديدي الصوماليات أيام صار كي لما أنتم نوحوي واحد أركي دد صوماليات أو أباهن دد هجامية ماشي الصومالي ما أنت أي كل عسنته معناه وحوي وهجام كسروي مركا waxay la tahay waxa weeye waxa la jooga maanta xilligii dalka iyo dadka hogaanka sare isbedel lagu sameyn lahaa ayaa la jooga marka aniga safarkaygan halkan aan Nairobi aan ku imina waxa weeye safar la xiriira sidii dadka Soomaaliyeed ee halka jooga iyana loo wacyi gelin lahaa waxaan aaminsanahay maanta dalka Soomaaliyeed inuu u baahan yahay isbedel waxaan kaloo aaminsanahay in dadka laftigiisu ay u baahan yihiin in ay isbedelaan waayo madaxweyne la bedelay يوميد عصور الله كنا وحبا ما صمينا حدي عن ذلك يدك حدي إنك شقف كست أو شخص إنك جامده وسن معناها وسن آمنين إن بدو أي تقف كست مجلس أوبا هي مركب حلنا هاي دل أنت صوماليات هوينك صوماليات هلك يسويمي قفل بويدين كده كم دلك ويدين بهاي الاسم أيوب بهاي سيد دبليس لوجو صمين لها سيد النبت قليل لوجو صدبال لها مركب عندنا وما مغنى علا وما قدنا وحلو بهاي إن المقرسة إنه هوشة إنه وقعنوا أي لو بهاي هاي هدي إلى إرادة كل حفلتنا وقبض دونا تأدي بدنا أمها سنتين سيدا ونعكس مقرسة يسود ويسين مات ربوت كان شو كيات أدي يسود ويسين. مدن المشرحين بدنا يسوسوا تاجي سحر كان جرته ما حاول دون أنت السياسة ده والله ده. لا رهانتي وحوي سوالف وحيكون مع سوم البرار وما كا. وحوي سوء أكين سويت أنا سوء أكين وحوي أنا جو حدونا يدك لبعض إسبد اللي وصمي ما هو جانك كليه هو جانك إن إسبد اللي وصمي دت كان لو عيق كليه هاو شيء جنبها هاو حد كليه مقرصة كويك ووقتي واللونج تيرم مدك لو حوي وحنا هاي مشرحة كليه الصومالية إلى أي حد أن أفكر كهذين للكي صومالية تجي waxaan tagay from Boosaaso laga soo bilaabo ilaa Gurceel Dhuusamarheeb Caabud Waaq ayaan tagay Gaalkacyo dhulka dhan ayaan isu soo maray marka nin banka qooq ah oo dibadaha on ka hadlay waxay la tahay xilli la dhageysto looma joogay waxa loo joogaa xilliga ficilka qofkii magarasa wax qabadka lahaa wax qabadna waxa leh qofkii dalkii iyo dadkii tagay oo dadkii uu hogaamin lahaa soo arkay indhahooda soo arkay meelihii qaxootiga ee dalka gudihiisa magarasa tagay soo arkay marka taas ayaan magarasa anigu aan run ahaantii aan kaga duwanay hadii ilaahay yiraahdo mudane calaamada ka muuqata boorka ugu soo dhaweynayo wax ka muuqda calaamada xisbiga ama sunnada jamaaca marka musharax xisbiga ama sunnada jamaaca u taagan qabashada jagada madaxweynaha Soomaaliya run ahaantii waxa weeye qofku marka uu musharax yahay qof kasta oo Soomaali ah oo taageersan uu soo dhaweynaya marka maanta waxaan soo dhaweynayaa qof kasta oo Soomaali ah iyo urur kasta iyo xisbi kasta oo Soomaaliyeed in ay isu yimaadaan oo magaranaysa ay taageeraan ayaan aad magaranaysa magacaada ma ku socotaa mise sunnahana ku socotaa waxa weeye runtii waxa weeye anigu magacayga kaliya kuma socdo waxaan kaloo abuurnay urur dhalinyaro ah sida ragga dhalinyarada halka jooga ay kamid yihiin waa urur dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo la yiraahdo SYL oo ujeedadeedu ay tahay in aanu soo noolayno xisbigii Soomaaliyeed ee gobonnimadeena dhaliyay in aanu soo noolayno marka tigirka anigu aan ku socdo waa kaas xisbigii SYL2 way sidoo kale waxa weeye ahlu sunnah waxa weeye waa dadka kaliya ee maanta dalka iyo dadka dhibaatada magarasa ay ku jiraan ka saari kara weeye marka iyagana waxa weeye de endorsement-ga endorse gareeyeen magarasa taageeradooda aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa kooxaha mucaaradka ya al-shabaab ama kooxaha mucaaradka maxaa ka aaminsan sida loo macaamilo waxaan ka aaminsanahay qof kasta oo mucaarad ah in uu qoriga dhigo marka ugu horeyso inaan qoriga dhigtaa waayo dalka iyo dadka Soomaaliyeed uma baahna in magaranaysa qori loo qaato in dadka la laayo looma baahna waxaanu nahay anagu rag sida aad ka aragtay rag dhalinyarada halka taagan urur dhalinyaro oo Soomaaliyeed SYL2 la yiraahdo waa non violence movement qori ma wadano anagu waa dhaqdhaqaaq
Soomaaliyeed oo doonaya in colaadda ummadda sokeeye ka dhaxaysa in aan dhamayno ayaan doonaynaa marka ma wadano wax qori ah qof kasta oo Soomaaliyeed waxa laga rabaa in uu qoriga iska dhigo haddii aad mucaarad noqonayso way fiican tahay laakiin waa in aadan magaraysa qori qaadan waayo qorigu nin buu dilaayay nin ma nooleeyo fikirkaaga ku aadna xaq jirka Soomaaliya ama beesha caalamka ay u taqaan argagixisada sidoo kale run ahaantii waxa weeye nin waliba qof waliba waxa weeye Soomaaliyeed xad buu leeyahay waxa wanaagsan qofku inuu san xadkiisa gudbin qof walba waxa weeye marka uu ay gaadho heerka aad gaadhid in magaranaysa aad qof islaam ah ama qof Soomaaliyeed aad dhibaataysid ama aad dishid xadkii wad ka gudubtay marka taasina wax loo baahan yahay maaha marka waxaan leeyahay dhalinta Soomaaliyeed yaan la khaldin maskaxda yaan laga wareerin waa inay dalkoodii iyo dadkoodii hooyo ay dib u eegaan danta Soomaaliyeedna ay ka shaqeeyaan taas ayaan magaranaysa anigu aan ka aaminsanahay okay thank you يلا بكرة جبل عبد الوهاب محمد عبد الله SSC نيروبي كينيا